بسم الله الرحمن الرحيم إلهي سبحانه وتعالى mahad iskale waxaa sii dhamaanaya sanadkii 2023 waxaa soo dhow sanadkii 2024 waxaa muhiima in qofku isweydiiyo sanadkaa dhamaaday maxaa kuu qabsoomay maxaase kuu qorshaysan sanadka soo socdana qorshahaagu muxuu yahay waxaan doonayaa markaa muuqaalkan kooban inaan kaga warramo qofku sidee buu ugu diyaar garoobayaa sanadka soo socda ee 2024 qodobka koowaad waxaa muhiim ah inaad horta isxisaabisid oo aad xisaab ku samaysid sanadkii dhamaaday ee 2023 maxaa kuu qabsoomay halkii wax kuu marayeen halkeed wax waday sanadkaasi sanad nooceeya ayuu ku ahaa waxaad ku samaysaa review ama dib u eegid sanadkaasi 2023 markaa sanadkaasi sidoo ku ahaa aad falanqaysid ee aad gorfaysid waxa kaga soo baxaya lambarka labaad qorshayaashaadii sanadkaasi miyay fuleen mise may fuleen qorshayaashaadii miyay qabsoomeen mise way qabyoobeen waxaa muhiim markaa inaad siidiso sanadkaa tagay qorshayaashaadii maxaa kaaga fulay maxaase kaaga qabyoobay intaa marka aad samayso ee sanadkaa hawshiisa ka soo gabagabayso waxaad bilaabaysaa sanadka 2024 qodobka koowaad wuxuu yahay inaad dejisato ama samaysato qorshahaasi oo aad doonayso inaad horumar weyn ku gaadho sanadka soo socda haddii Ilaahay qadaro waxaa muhiim markaa qorshaha ku noqdo dhowr qodobka koowaad qorshaha sanadkan doonaysa ma waxbarasha ma guurba ma wax kala sanadkan ma safar ba doonaysa maxaa doonaysa qorshe dheer dejiso sanadka 12 bilood soo socda haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qadaro oo wadka ku daayo wixii aad qaban lahayd qodobka ku xiga waxaad go'aansanaysaa sanadka 2024 waqtiga inaad ka faa'iideysato waxaa laga yaabaa sanadkii imika dhamaadee 2024 ee waqtigaagu meelo aan macno lahayn kaaga baxay marka waxaad isku daydaa sanadka soo socda ee 2024 in waqtigaagu ku baxo meel wanaagsan oo aad faa'iido ku leh if iyo aakhiraba ku anfacaysa waxaa muhiim ah qofku markaa inuu isweydiiyo sanadka soo socda qorshayaashaada waaweyn maxay yihiin maxaase doonaysaa sanadka soo socda waxaad isweydiisaa markaa institutionada iyo goobuhu waxay samaystaan qorshahaas markaa muhiima qorshahana sidii uu hawlgal ku noqon lahaa insha Allah ta'ala kugu qabsoomi lahaa ayaa muhiima inaad isweydiisid oo hawshidaad gashid waxaan jeclahay muuqaalkan inaan inta ku soo koobo waxaan jeclahay insha Allah asxaabtiin inaad gaarsiisaan dhamaantiin aad baad u mahadsantihiin si gaarsiiya